waxaan tacsiin dirayaa ciidankii qaranka booliiska lagu laayay ceelaf weyn oo aan la garanayn sababta loo laayay kuwa dhintaa Allah u naxariisto kuwa dhaawaca Allah inoo caafimaadiyo halkaa ceelaf weyn iyo degmada garamayno wax ciidankaa lagu laayay wax alliyo wax dhibaato ciidankaa isugu yimaadaan oo lagu laayo oo maanta la qiri kara ma jirto shil oo ilaahay markii hore lagu laayay saraakiisha booliiska iyo jeerkaadiyadana wax alliyo wax loo laayay aan la garanayn waxa la yaab leh in cid ama reer uu ciidanka qaranka si dhab yar isaga laayo dabeetana haddii la wada qaato qaranka dul qaato laga badawada hala ilaaliyo xagga hala wareego inay noqoto wada xalaal ah in ciidanka qaranka laayo maalin walba oo dabeetana ay noqdaan reerahayna laba jirna ay kala baqdaan oo ninku hadduu qolo yahay aan la taaban karin reerkooda laga baqanayo hadduu qaranka yahay aan lagu soo degdegayo bilaacil lagu dilaya wax dhici kara maaha haddii loo jeeyo xukuumaddu hadduu qaadato dadka hal waaniyo gacan qabo lagu maamulo laakiin dulqaadka iyo duqoonimadu waa waraado laba kala saari karo waxay la tahay waxay gaadhay dulqaadka inta qaranku dhaafay markay duqoonimadu ku jiro oo maalinba qaranka uu meed soo wanagsanayo oo ay tahay ninkii waa lagu ooyaa waxay la tahay taasi inay dee soo afjarmayso aqal ka badan la keeno dhibyaraanta ciidamada qaranka loo leenayo annaga xukuumad ahaan iyo madaxweynaha waan ogahay inuu qaranku leeyahay maxaa laga qaadayaa reeraha leenaya ciidanka qaranka waan ogahay su-aasha ummadda sugayso waxaynu ka qaadi waxaynaan kula burburin ninka gardarana ku qabanno foormuladeeda aad iyo aad wax bahay mana sii socon karto qaran ahaanna akhafu darribi waadada markay shareecada eegayaan labada dhibaato tayar marka waa in dambiilina la qabta yarkii gardarka dee gacantii gacan ka weyn loo geysan ila wala kale reerkayga waxa leeyahay in caqli saareen dee labadii waa la sheegay laakiin caqli baa laga doonayaa dee dadka kale degan maalmo qaranka leeyahay waana deegaan kaliya